waxaa bilaabmaya sheeko faneedka. waxa uu qoraalku horey kuugu sheegay inuusan mas-uul ka ahayn shakhsiyadaada iyo abufikirkaaga iyo sida aad xidhiidhada iyo jacaylada aad u aragto inuunan haddii wax iska kaa bedelo isaguunan ka mas-uul ahayn. sidoo kalena wuxuu digniin ka bixiyey sida aan kusoo sheegay hordhaca dadka isguursanaya iyo dadka isdoonay in uusan buugani uunan iyaga ku soconin, mamnuucna ay tahay inay akhriyaan, isagoo sheegay in ilaahay uu ka markhaati dhigtay inuu arrintaas isagu ka digay isbedelka shakhsiyadeed ee kugu yimaadana inuusan isagu ka mas-uul ahayn, maadaama uu buugga hordhaciisa ama sheeko faneedka hordhaciisa uu kuugu sheegayba. kulankii waxaan joognay bisha March marka saaxiibkay Cabdilaahi telefoonkiisa uu soo dhacay isagoo faraxsan. waxa uu igu yiri, saaxiib ii hambaliye, shaqo ayaan helay. waxaad igu hambaliyeysaa inaan shaqada helay. waxaan maanta aaminsanahay inaan ahay bini aadamka adduunka jooga qofka ugu farxad badan. waxa uu leeyahay ninkani ama sheeko faneedka ninka qoraya ama qoraagu waxa aan aad ugu farxay farxadiisa, waayo waxa uu helay saaxiibkay shaqo ayuu helay. waan u hambaliyey, waxaana weydiiyey xageed ka heshay shaqada. wuxuu iigu jawaabay, waxaan ka helay jaamacaddaas oo aan yaraantaydii wax ka baran jiray. maad rumaysan karaysaa ayuu yidhi arrintaas. waa jaamacaddii aan kusoo qaatay waqtiyadaydii ugu qurux badnaa ee dhalinyaronimada. maantana waxaan ku laabanayaa aniga oo yar ama dhalinyaro ah ayaan mar labaad ku laabanaya, isagoo uga jeeda waxaan ku laabanayaa oo aan maanta ka shaqaynaya anigoo macallin ah ama shaqaale ka ah, aniga oo madaxayga ku sita xasuusihii yaraantayda oo markaan jaamacadda kusii socdo aad moodayso inaaban waqtigii yaraantaydii ee aan jeclaha aan kusii socdo. Cabdilaahi waxa uu ahaa mid aad dadka uga duwan dhanka riyada, afkaarta iyo waxa uu isleeyahay adduunyada tani ka gaadh iyo riyooyinka maskaxdiisa ku jira. maalin maalmaha ka mid ah ayuu iigu yeedhay inaan xaflad u dhigno guushan uu gaadhay ama shaqadan uu helay. waxaan baxnay xilli galab ah, waxaanan aadnay hoteelada ku yaala Cumaan, taas oo isagu noo doortay balse aan halkaas u fadhiisano oo aan ugu wada sheekaysano oo aan isu daba marsano sheekooyinkii yaraantii. waxa uu leeyahay, markaa halkaas ayaan tagnay, waxaana bilownay inaanu sheekaysano. sheekadaas oo ahayd mid aan markaasi ka baxaynin ciyaalnimadii iyo xasuusaheedii iyo jaamacaddaasi xilliyadaas xasuusihii Cabdilaahi uu soo maray. maanan arkin ayuu leeyahay farxad noocaas oo kale ah isagoo faraxsan Cabdilaahi. anigana aad baaban ula farxay. waxaanan isku dayey mar iyo labo marka uu ku dheeraaday sheekadii ciyaalnimadii iyo carruurnimadii iyo jaamacaddiisii, bal inaan sheekadaasi aan soo koobo ama aan isku dayo inaan joojiyo maadaama uu waqtigu naga dhacay. laakiin Cabdilaahi waxa uu ahaa marba mar ka dambaysan inay sheekadiisa iyo xasuusihiisu isa soo furfurayaan oo maba dareensaninba inuu waqtigu naxadayo ama waqtigu dhaafayo. wuxuu ahaa marba sheeka ay kusoo dhacdo oo sheekada ka sheekaynaya, taas oo sababtay in habeenkaas waqtiganagii ay sheekadaasi ay cunto. xilligaas ama habeenkaasi waxa uu noqday mid aan soo jeednay. ugu dambeyntiina waxaan usoo baxnay bal inaan soo seexad doonano anagoo galabtii hoteelka fadhiisanay, habeenkiina xilli dambe kasoo baxnay. maalinkii labaad Cabdilaahi waxa uu soo aaday shaqadiisa isagoo faraxsan oo farxad darteed inuu la duulo taagan. waxa uu bilaabay sida caadada u ahayd Cabdilaahi in uu isku akhriyo oo uu naftiisa ku akhriyo subaxii qul huwa allahu axad iyo sidoo kale qul acuudu birabbil falaq iyo sidoo kale qul acuudu birabbin naas oo la yidhaahdo macwadatayn. maalin kasta ayuu isku aqriyi jiray ama subax kaste si uu qalbigiisu u dego, farxadna maalinkaas u dareemo, sidoo kalena uga badbaado isha xaasidka ee ku dhex lahayd iyo dhibaatooyin walba ilaahayna ugu bandhigo awooddiisa yar, khibradiisa yar iyo dhibaatooyinka haysta si ay arrimahaas uga fududaadaan. Cabdilaahi waxa uu la kulmay saaxiibadiisii shaqada, waxa uuna meeshaas ku bartay saaxiibadiisi cusub. laakiin sanadihii badnaa ee soo maray ayaa jaamacadda waxa ay kaga tegeen isbeddel badan ayay kaga tegeen. waxayna jaamacaddu u ekaatay mid gabowday marka muuqaalkeeda la eego. waxa uu soo xasuustay yaraantii kubaddii ay ciyaari jireen iyo farxadoodii badnayd. sidoo kale waxa uu soo xasuustay waxa uu arkaya Cabdilaahi geedihii jaamacadda ee yaryaraha ee quruxda badnaa ooba isbedelay oo weynaaday oo noqday kuwo aad u waaweyn. haddana iyadoo sidaa tahay oo goobtu ay isbedeshay oo ay ka muuqato duqnimo iyo gabow, haddana gabowgaas iyo duqnimadaas jaamacaddu ka muuqatay waxay u siyaadisay qurux iyo haybad. geeduhu inta badan waa bini aadamka oo kale, markastoo ay weynaadaan waxa u siyaada geedahana ama usoo biira xikmad iyo dulqaad ay u dulqaataan nolosha dhibaatooyinkeeda. waayo maxaa yeelay geeduhu waxa ay leeyihiin coorcoor sida bini aadamka oo kale ayay iyagana geeduhuna u coorcooraan sida bini aadamka jirkoodu marka ay gaboobaan ama waqti badan uu kasoo wareego u coorcooraan. geedaha waxaa ka daata caleenta ayaa ka daadata sida qofka bini aadamkii markuu weynaado timihiisu ay u daataan. geeduhu waxay noqdeen kuwo u dulqaad badan dhagaxtuurka ciyaalka iyo dhibaatada ay ku samaynayaan, waxayna dulqaadkoodu noqday mid aad u fara badan sida qofka bini aadamkii markasta uu weynaado dulqaadkiisu uu farabato. Cabdilaahi waxa uu ahaa marka la eego dhanka shaqada iyo goobta uu ka shaqaynayo ninka labaad ee goobta ka shaqaynaya kana mid ah macallimiinta, taas oo macnaheedu tahay jaamacadda dhanba waxay kaga shaqaynayeen 2 nin iyo dumar fara badan, laakiin waxa uu ahaa ninka labaad ee isagu meeshaasi ka shaqeeya. laakiin tiimka intooda kale waxay ahaayeen wada dumar ayay ahaayeen, taas oo cabsi badan ku abuurtay Cabdilaahi ma uusan ka dhaqan dhiganin mararkiisii hore ama noloshiisii hore inuu la saaxiibo dumarka ama dumarka uu dhex galo. sidaa darteed waxa uu jaamacadihiisiina kusoo dhigtay xilliyadiisii uu dhiganayay in dumarka iyo raggu aysan isdhexgelin oo galaasyo kala duwan ay wax ku dhigtaan laakiin aynan isdhexgelin.
jaamacadda dhexdeeda ma jiraan nin iyo maaragtay rag iyo dumar isdhexgalay oo jaamacadda wax ku dhiganayay, gaar ahaan marka la yidhaahdo wadanka la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa sacuudi carabiya. sidaa darteed isdhexgalka ragga iyo dumarku waxa uu ku ahaa cabdilaahi shay cusub, isagoo maantana ay horan tahay maadaama meesha ay wada macallin ay ka wada noqonayaan, dumar iyo rag ay ka noqonayaan. haddana arrintaasi maynan cabdilaahi saameyn weyn kusii yeelanin, laakiin waxay ku abuurtay welwel iyo inuu la qabsan waayo. cabdilaahi waxa uu ahaa mid ka jawaaba gabdhahaas haddii ay wax su-aal weydiiyaan ama haddii ay la hadlaan, isagoo eegaya dhulka. way ku qosli jireen gabdhahaasi cabdilaahi, waxaynan u arki jireen in uu cabdilaahi ragga uu ka duwan yahay, raggii meesha ay gabdhahaasi ku yaqaaneen in uu ka duwan yahay ayuu u ekaaday. cabdilaahi waxa uu ka duwanaa markaasi ninka kale ee meesha ka wada shaqeeyeen, maadaama dabeecadu lahaa inay dumarka isdhexgalaan, dumarka ay wada sheekaystaan. laakiin cabdilaahi dabeecadu ma lahayn arrintaasi, taas oo sababaysay xataa haddii ay wada hadlaan gabdhahaas inuu isaguba foorarsan jiray, dumarkana uu ka cabsan jiray ama uu ka qajili jiray. haddaba waxaan xalqada dambe uga hadli doonaa, waan kasii wadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo, isfahanka cabdilaahi iyo marxaladii isdhexgalkii dumarkaasi ay wada shaqaynayeen, iyo sida uu la falgalay, iyo sida culturekii uu jaamacadda la soo galay ee ahaa inuunan horay u ahayn qof xidhiir la leh dumarka ay meel ka wada shaqaynayeen. maanta si ay soroon yihiin halkaas oo wax badan ayaan ka arki doonaa. haddaba intaan xalqada dambe ku kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.